kalsoonidu waa shay qurux badan oo dadka looga baahan yahay waxayna ka tarjumaysaa shakhsiyadda aadanaha oo waxay isaga siisaa awood uu isagu iskiis u yeesho. kalsoonida naftaadu waa waxa ay tahay inaad dareento ka hor intaadan fahmin cabbirka dhabta ah ee xaalad kasta. kuwa sameeya isku kalsoonida waxay yeeshaan horumar. qofka isku kalsoon wuxuu leeyahay qosol ka duwan kuwa kale, xitaa neefsashadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa waxay leeyihiin qaab ka duwan kuwa kale. haddii qof karti kuu lahaan karo inuu wax kuu qabto, ogow inaad karti u leedahay isla waxaas inaad qabsato. maxaa yeelay qofkaani adiga kaama fiicna. taariikhda carabtu waxaa ka buuxa xaqiiqooyin muujinaya sida ay kalsoonida muhiim u tahay. taariikhyahanada carbeed waxay soo wariyaan in tataarisku ay dagaal maskaxeed la galeen dadkii ay ku soo duuleen, isla markaana ay basaasyo ugu direen dadka dhexdooda si ay u baabi'iyaan niyaddooda iyagoo faafinaya warar ku saabsan xoogga tataarka iyo heerka dulmiga ay leeyihiin. markii ay soo galeen mid ka mid ah magaalooyinka oo dadkii degganaa ay ka carareen. dadka kuma dhalan kalsooni, laakiin doorka ugu muhiimsan ee hoggaamiyaha waa in lagu abuuro isku kalsooni. dhiirigelintu waa hab cabsi iyo kalsooni leh. isku kalsoonida ayaa dadka kala hoggaamisa.